dhammaan asxaabta walaalaha Saaci Talk ku xiran kusoo dhawaada xalaqada cusub iyo barnaamijkeena Saaci Talk. Saa ognahay barnaamijyada qorshayaasheena nolosha, barnaamijyada aan samaysano, qorshooyinka aan degsano, nolosha aan maareyno oo dhanka waxbarashada, dhanka shaqada, dhanka qoyska, dhanka horumarinta nololeed dhammaanteeda waxaan samaysanaa wax la yiraahdo qorsheyn ama planning. laakiin markaas aniga nafteeda aan ka bilaabo adiga daawadaha naftirkaaga iyo dad badan oo barnaamijkan daawado ama dadka kale bulshada caadiga ah waxaa haysta dhibaato ay ugu horeyso la yiraahdo qorshe dejin, laakiin aan laga sii gaarayn natiijada iyo gabagabada loo baahnaa aan laga mirdhalinayn. maanta waxaan isku daynaa insha Allah inaan 5 talooyin ama 5 ciladood oo barnaamijyada aan ku sameyno markaan qorshayaasha aan sameysanayno ciladahaas aan ku larayno ayaan ka hadlaynaa si hadhow intaas 5 aan isaga ilaalino si aan u gaarno natiijooyin wax ku ool ah ama waxtar leh ama natiijo oo waxtar leh saa u leeyahay. marka barnaamijkeena ku soo dhawow. dabcan 5 waxaan ka soo bilaabay qoraan ka soo bilaabay 5 ilaa hal baan gaarsiinaynaa. midda shanaad waxay tahay barnaamij qorshe markaan dejinayno waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo wax walba inay dhameystiran yihiin ayaan rabnaa. tusaale natiijo 100% inaan la imaan ayaan ku talagalaynaa, taasoo dhibaato badan keenaysa. sababta adiga bani'aadan aad tahay ducuf yaa iska jiro, waa inaad ku talagashaa ugu yaraan percentage macquul ah ku talagashaa. haddii sidii aad rabtay 100% gaari weyso waa inaad tirada ku darsataa sidaad u kabi lahayd oo aad isu diyaarin lahayd waxaad rabtay hadaadan gaarin inaad sii wadi kartid qorshahaaga nafsiyan aad isu diyaarin karto. tusaale kale marka idin sheego kasoo qaad maanta waxa ay qorshaysan subaxdii ilaa maqribkii inaan noloshayda jadwalkayga saacad ula socdaan rabaa. مثلا jadwalka waxaa ku jiro kasoo qaad bacda duhur inaan akhriyo buug hebel oo ii calaamaysan. buugii waa ii suurtageli waaye, marka waa inaan samayn karo wax kale aan ku buuxin karo. waa inaan niyad jabin inaan buugii maadaama aan akhrinin maanta wax walba waa akhriyay sidii la rabay ma noqonin, waa fashay mid aan dhihin. kasoo qaad buugii waa weysay, mobilka internetka gal, samcadda xiriirso, saacada ugu tala gashay wax faa'iido la dhageyso, hooskii dhamaystir, hana niyad jabin. marka tan wax walba inay sidooda ku imaadaan hafilaneen waxaa samaysaa wax ku bedelo isu dhiirigeli hore u sii wad qorshahaaga. midka afraad haddaan u gudbo waxaa la yiraahdaa wax aan caddayn qorshahaaga ku darsanin. taas waxaan ka wadaa qorshe markaad dejinaysid wax walba waa inay cad yihiin. waa inaad tiraahdaa hebel baan akhrinayaa, maalin hebel baan akhrinayaa, qorshe hebel baan sameynayaa, waqti hebel baan sameynayaa inaad caddayso. haddaad waxa aad sameynaysid aad ka dhigto waxaan mal awaal ama aan caddayn waxay keenaysaa inay fashilmaan. tusaale marka idin siiyo waxaa jirto daraasad lagu sameeyey 3 group ayaa meel la soo keenay. waxaa lagu yiri waxaa laydinka rabaa inaad muddo 2 usbuuc ah exercise ama jimicsi samaysaan. marka 3 group ayaa waxaa loo kala saaray midba waxbaa loo sheegay. si guud ah waxaa ka dhaxeeya inay exercise ama jimicsi sameeyaan. kiin waxay ku kala yihiin groupka koowaad waxaa lagu dhahay intaad exercise-ka aad wadin 2 usbuuc waxaa akhrinaysiin buugaag aan shaqo ku lahayn exercise-ka ama aalamiintada. kooxda labaad waxaa lagu dhahay waxaa akhrinaysan buugaag aalamiinta ka hadlaya faa'iidadeeda iyo waxtarkeeda. kooxda saddexaad waxaa lagu dhahay buugaag akhriya aalamiintada shaqo ku leh, laakiin waxaad kula sameynaysaan 2daas usbuuc waxaad dejisanaysaan jadwal aad ku calaamaysanaysaan waxaad sameyn doontiin, maalinka sameyn doontiin, nooca aalamiinta sameyn doontiin, saacadda sameyn doontiin samaysta mar walba la socda. 3 group howlihii loo diray way wadeen 2 usbuuc kadib waxaa la fiiriyey qaabka ay ugu adkaysteen ayna u fuliyeen aalamiintadu. kooxda koowaad aan akhrinin aalamiinta wax shaqo ku laba akhrin laakiin laga rabay in exercise sameeyaan 38% lagu qiyaasay hadba inta ay aalamiintada sii wadeen. ana 38% in la mid ah ayay aalamiintada isbuuc ku dadaaleen ama laazimeen. kooxda labaad 35% ayay aalamiintadii ama exercise laga rabay laazimeen. kooxda u dambeysay ee akhriska iyo jadwalka samaystay laga codsaday inay jadwal ku daraan 91% ayay laazimeen aalamiintada laga rabay. waxayna ku dhigan tahay 100% wax yar dhiman ayay aalamiintadii sameeyeen. marka maxaa meesha nooga cad? waxaa meesha nooga cad kooxda u dambeysay waxay ku guuleysatay waxay tahay aalamiinta kaliya ma sameeynin ee waxay sameysay qorsheyn cad iyo saacad iyo maalin iyo wax walba tafaasiil iyo faahfaahin ay samaysteen waa ina tixraacin mar walba. marka meeshan waxaa ku cad
qorshe walbo la dejinayo waa inuu cad yahay uuna mid la sheegi karo oo la tilmaami karo waa kas la dhihi karo inuu yahay aysan ahaanin aniga waxaan rabaa inaan subax walba iska caalamiinto ama bishaan ama sanadkan inaan iska caalamiinto inaysan noqonin waa inaad qorshe dejisaa maalinkee aadaan maxaa samaysaa noocee samaysaa waxaasna inaa ogaato midda saddexaad waxay tahay filashada aadka u sareysa dhibaato ayay keenaysaa sababtu maxay tahay inaad qorshe dejisid aad wax diyaarsatid aad jadwal aad samaysatid way fiican tahay waa arrin wanaagsan laakiin inaad filasho aad u sareysa rajayso waxay keenaysaa inaad kaniya jabto ama aad ku fashilanto qorshahaaga tusaale ka soo qaad qof ayaa wuxuu samaynayaa masalan wuxuu leeyahay matalan waxaan samaynayaa inaan quraanka xifdiyo ayaan rabaa wuxuuna qorshaystay masalan 5 bil gudood asoo og awoodiisa waqtigiisa fursadiisa cilado badan asoo leh ayuu wuxuu sameeyay 5 bil iyo quraanka 114 inuu xifdiyo marka meesha waxaa ku jirto filashadan aad u sareysa iyo ciladan uu qabo ay asaga u diyaarsanayn fursadiisa yar waxay isku imaanaysaa natiijo waxay imaanaysaa opposite ama aan waafaqsanayn tii uu filanayay marka waxaa la leeyahay filashadaada haddii aad uga sareyso waqtiga aad munaasib u ah iyo diyaar garowgaaga natiijo saxan lama imaanayso maxaa laga rabaa marka haddii aad filashadaada sareyso waa inaad samayso horta inaad waqtiga wax ku dartaa maadaama aad filasho sareyso aad samayso haddii kale ma ahan filashadaada yarey tusaale waxaad dhahdaa matalan hal bil waxaan ku xifdinayaa intaas suuradood oo kale haddaad wax ka dhinto barnaamijkaaga fashil kuma imaanayo ee waxaagaa soo yaraysatay laba mid waxay ku baahan tahay inaad waqtiga aad sii dheeraysatid filashadaadana ay sareyso laakiin inaad waqtiga soo yarayso filashadaadana ay yarayso muhiim marka qorshe markay dejinayso waxaa laga rabaa duruuftaada shakhsiga iyo qof wax un sameeyey adiga hawsha aad rabto qof uu sameeyey oo kale waa inaad la tashataa kadib say u noqoto filashadaada mid ku jaan go-an waqtiga juhdiga iyo waxyaabaha u dejisay adoo ka faa'iidaysanaya khibraad hore markaas waa okay laakiin haddaad hal mar u laablakacad u samayso filasho sare aad samayso hadhow waxay imaanaysaa natiijada adoona ku guulaysanin qorshihiina aadan dhamaystirin midda labaad ayaa waxay tahay waxaad rabtid inaad samayso qorshe u dejisay aad rabto inaad waqti geliso aad ku dulqaadato aad wax walba geliso waa inaad xirfadooda leedahay tusaale haddaan kasoo qaadano kale haddaan dhaho youtuber inaan noqdaan rabo inaan muuqaalo duubo magaalooyinka aan tago wax badan aan kasoo jeediyo howlahaas aan qabto matalan ama muuqaal duuba inaan noqdaan raba vlogiska iyo howlahaas aad qabanaysa aad rabto inaad guul ka gaarto waqti iyo jadwal iyo waxa u samaynaysid waa inaad laftarkaaga taqaanaa camera duubi kartaa video edit gareyn kartaa iyo waxyaabaha ku saabsan oo dhiiriga la socda marka natiijada heerkaasaan gaari rabaa muddo hebel intaadan yahay waa inaad waxaas aad samaynaysid xirfadeeda wadada loo maro habraaceeda wixii aad taqaano kadib aad fulinteeda iyo waqti siinteeda aad samaysaa marka waxaad rabto inaad ku dhaqaaqdo waa inaad taqaano midda u dambeysa oo lambarwanka aan kusoo khatimayo waxay tahay qorshaha aad dejinaysid hawshaad rabto waxaad fulin rabtid iyo jadwalkaaga nolosha shaqada guriga qoyska familkaaga noloshaada horumarinteeda waxbarasho qorshayaashaas oo kuu daad rabto inaad degsato muddadaas macayanka ah markaad u diyaar garowdo wax walba aad u samaynaysid waa inaad ku dartaa kalsooni diyaar garow rabitaan iyo inaad naftaada aaminsan tahay ayna kuu noqota berrito meesha aad taagnaan doonto markaad waxaan aad ku guulaysato sababtoo guul adiga naftaada aysan qalbigaaga aadan kalsooni iyo ogolaansho iyo farxad iyo diyaar garow iyo isdhiirigelin aysan gudahaaga ku jirin si walbo resource iyo waqti wax walbo dhiirigelin dadka kale aad u haysatid guusheeda iyo horumarkeeda ma keenaysa marka waxaan kusoo taqadimayaa noloshaada jadwal ugu samaysid marka hore waxa ugu horeeya aad rabtid inaad baratid waxay tahay hal maalin walba markaa soo kacdo subaxii ilaa gabaldhicii waa inaad fiirisaa maanta maxaad qabatay oo faa'iido ah maxaa waqti aad dhumisay maxaad faa'iidaysatay maalin walba inaad isbarto inaad maalintaas aad xisaabso aad isfiiriso aad isla xisaabsanto marka isla xisaabtanto waxaa kuu soo baxayo ugu noqonaysaa maalintaad ugu waxtar badneed iyo maalinta ugu waxtar yareed aad baranaysaa kadib taas waxay kuu sii dhiirigelinaysaa inaad mustaqbalka aad dejisatid qorshooyin usbuucle qorshooyin bille iyo sanadle aad dejisan kartaa marka muuqaalkeena maanta halkaas ayaan usoo keenaynaa wixa aan ka tagay idinka ku dara wixii dhiirigelin ama xaggiina waaye insha allah intaan ku kulmi doono muuqaal kan oo kale ah waxaan idinka tegayaa هذا والسلام مع السلامة يعني الله يحب بس أرق ذنبه وحيسله